وكودي لوليو أما كودي جولاي لبدي كوني تضبيط طبانكي مركوجو رئيس يعني فرصة دي سجين وحن هالكن همبليو يتهنيد يبقادين بوجود ريا شعبي الصومالية دون ما هي شعبي الرئيس الصومالية ويمالنتو أي قارو هاي أود بالدقيقة تضبيط كنتم جوردي كسورك تي مالنتي أي حرمة ذاك قاتين جميسي تليانيجا وإسلام كانوا كبيعان maalintii ay israaceen ama ay isku darsadeen labadii gobol ee Ingiriiska iyo Talyaanigu ay kala gumaysan jireen anigoo munaasabada ku tahniyadeynaya ayaa waxaan aad uga xumahay khudbadii marnayd ee weyda ahayd ee uu madaxweynuhu u jeediyay shacbiga tabaalaysan ee aanu kaga hadal mudnaantooda iyo baahidooda waxay tahay balse ku tahay magacyo dad dhintay naxariistii janna Allah ka waraabiye oo badnaa oo siyaasiyiin lahaa oo hal abuur lahaa oo ku sheegay inay gobonimada u soo halgameen isagoo in badan oo kamidana taseeyay tusaale ahaan markuu soo qaadanaya Sheekh Mukhtaar Xuseen oo gudoomiyihii baarlamaanka uu ku sheegay 769 waxaanu wada ognahay in dalku xoroobay 1960 israacuna dhacay de 7 sanadood ba cid baa gudoomiye oo ahayd baarlamaanka jaamac Abdullaahi Qaalib ina diir qaraad Axmed Sheekh ayaa soo maray marka isweydiintu waxay noqonaysaa farmaajo kuwa maloomo ooyaan buu yaqaanaa wuxuu soo qaaday Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo uu ka soo qaatay halkuleeg uu yiri isaga lahaa markii uu halkuleega sheegayna wuxuu waxaan ka soo xigtay BBC-da reer Soomaaliya iyo reer Somalilandna hadday maqlaan waxa BBC-da laga soo xigtay waxay u qaataan hadalkii mafrishka iyo maqaayadaha oo xigasho maaha taasi Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal wuxuu dhintay isagoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland isagoo aaminsan buu dhintay fagaarayaashii caalamiga ahaa ee ugu mudnaa ee uu ka sheegay mowqifkiisa waxa kamid ahaa bishii 3aad 1993 anagoo joognay magaalada Sababa hoolka ECA-da shirarkii lagu magacaabi jiray dib u heshiisiinta Soomaaliyeed goobjoog aanu ka ahayn anagoo shirkii Boorama ka tagnay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ka hadlayay 18 urur oo Soomaaliya ka yimid ayaa fadhiyay 14 isbahaysiga Cali Mahdi bay ahaayeen afarna isbahaysigii SNA-da Caydiid bay ahaayeen khudbadiisii isagoo ku jira ayuunbu Cigaal wuxuu ku dhawaaqoon hadaad xilo dooni xamaraag joog hadaad xoolo dooni xamaraag joog hadaad xaraga dooni xamaraag joog dabeedna hoolkii baa isla oogsaday dabeedna waa kuwa qaaday Soomaaliya toosoo isku tiirsado hadba kiina taag daran taageero waligiin Cigaal maalintaa wuxuu yiri hadalkaasi halkii uu nadamqi jiray way bogsootay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal naxariistii janna Ilaahay ka waraabiye waa kaas waxaanu ku dhintay isagoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland aadna waxaan uga xunahay inuu farmaajo ka been sheego khudbadihii iyo tusaalooyinkii iyo tilmaamihii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxaanu aad uga xunahay inuu mar kale qaldo magacyadii hal abuurka Soomaalida xalayna wuxuu yiri Cabdillaahi Qorshe waa Cabdillaahi Qarshe muu garan waayin saddexdiisa magac iyo tilmaantiisa iyo taariikhdiisa waa Cabdillaahi Maxamed Maxamuud Xirsi oo ay dhashay Dahabo Xirsi oo ku dhashay 1924 magaalada Moshi ee dalka Tanzania 97 baan Google-ka iyo meel walba YouTube-ka gelinay taariikh nololeedkiisa laakiin tii tahli maayo inuu baadho oo la soo baxo kaasaa doonaya inuu luuqyada xamar amaan darrada taala baabiyo waxaan dadweynaha daawanaya xasuusinayaa tudcii ahaa hasalaax الناس gulay ninkii gaagaxshaatay waxa lahaa Ibraahim Galle maasadu waa garnaqsi waa 1998 waxaanu xasuusinaynaa farmaajo 1960 wixii dhacay wuxuu ahaa israac iyo isku dar maadaama aan soo qaaday Ibraahim Sheekh Salebaan Ibraahim Galle xaq u dirirkii aan xuduud lahayn
maruu arrintaa ka hadlayay wuxuu yidhi lixdankii dadkay markaa dowladnimadii diiqada u bixiseen degdegsiye mooye doqonnimo ma ahayn shanta kale dab raacdaa dermo qura u gowasheen sidaan damacsanaa iyo siduu doodiyeelaa kala durugsanaadee dar alle abaalkaa waxa dumay ku suure annaga halkaasi horta naga taagan tahayoo qoomamayn mayno waxaanu islahayn soomaali wanaaggeeda ka taliyo sidaasaanu calanka idinku keennay maanta wax midnimo la yidhaa oo lixdankii dhacay ma jiro isku dar iyo israac baa dhacay midnimada cidda ay ka dhaxaysay calankaa ka markhaatiya waa xidigta shangeeska ah ee cad ee ku taalla calanka annagu saddexdii soomaaliyeed ee kale haddii ay door bideen inay iskood u taagnaadaan oo ay u noolaadaan raalli baanu ka nahay waanu ku hambaliyaynaynaa iyagana waxaanu ka sugaynaa oonu uga fadhinaa inay nagu hambaliyeeyaan oo ay raalli ka noqdaan waxa ay doorteen inaannu annaguna dooranno oo sidaa isku raalli ku kala ahaano walaale isjecel oo wada jiro ku ahaano reer soomaaliyana waxaanu leenahay midnimo madhan oo aan jirin cid u fadhiisanaysa oo aanu kala hadlaynaa ma jirto soomaaliya waxaana dhex maray israac iyo isku dar diyaar baanu nahay israaca iyo isku darkaa inaannu kala hadallo midnimada ka hadalkeeduna wuxuu u yaallaa shantii soomaaliyeed ay ka dhaxaysay waa haddii ay dan ka leeyihiin haddii kale annaguna dan iyo muraad kama lihin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hambalyo maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed ay gaartay inay la tartanto caalamka inteeda kale oo ayna kula tartanto midnimo waa cashar wanaagsan oo laga barto waana ka baranay casharkaas inkastoo meel dhexe wax nooga halaabeen waxaan taagannahay maalintii aan qaadanaynay xornimadaan taagannahay waxaan ku jirnaa halgan oo aan doonayno ummadda soomaaliyeed inaan mideenno qof walba oo soomaaliyeedna ay ka saaran tahay mas-uuliyad ayna tahay inaan wada istaagno kulligeen sidaan mar walba uga wada hadalno inay tahay kow in magaaladan aan mideenno horta dadka jooga magaaladan ee 3 milyan ah inay noqdaan qof walba inuu waajibaadkiisa guto oo qof walba oo walaalkiisa uu la shaqeeyo uuna kala shaqeeyo wanaag dowladdana aad la shaqaysaan waxa la wixii wax u dhimaaya dowladnimada iyo horumarka Soomaaliyeed isku meel lagu wada istaago oo aan uga wada hormaarno waxaan ognahay maanta Soomaali meesha adduunka ka taagan tahay iyo magac xumadana haysa waxaan uga gudbi karnaa oo kaliya in aan ka shaqeyno wada jir inaan ka shaqeyno midnimo in magacii naga halaabay ee muddada naga halaysnaa inaan dib u soo celinno walaalayaal waxa ugu horeeya oo aan mar walba ka hadlaynaa waxay tahay dowlad iyo maxaan ku raahdaa nidaam waa waxa adduunka uu ku kala horumaray weeye waxaana kow ka ah oo aan ka hadlaynaa maalin walba ammaanka iyo nabadgelyada iyo in la dhowro nidaamka iyo in loo hoggaansanaado sharciga walaalayaal waxaa noo yaalla hawl culus hawshii hore oo aan soo gudubnay waxa weeye waxbaan ka barannay wax badan naga halaabay waan naqaanaa waxay nooga halaabeenna waan naqaanaa waxaa loo baahan yahay hadda inaan ka gudubno aan u gudubno oo aan ka tagno kow wixii qabiila iyo wixii qaybsanaan aan ka tagno oo aan u gudubno midnimo iyo wadajir maanta waa maalin taariikhi ah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka soo socda annagoo sidaan ka wanaagsan waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed oo sidaan isaga sii dhow waxaan rajaynaynaa magaaladaanu nabad ah waxaan rajaynaynaa Soomaali oo midowda oo wada jirta waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga waxaan wada sheegnaa maalin walbaba dadka loo baahan yahay dalkan inay mideeyaan oo u shaqeeyaan waa xoogga dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyaro waxaan leenahay dalkan waxaan soo gaarsiiyay midnimada iyo sharafka ay leedahay dhalinyarada idinkoo kala ah maanta waxaa la idinkaga fadhiyaa inaad ka shaqaysaan midnimada inaad u shaqaysaan dalkiinna
إن أوها الجنتان سيدنا بدريو يا أمان وبسوا لها إن الله وتقال نوح الله صوماليا نبض حمد كينايا أيوه الريان قلنا نبديتك أو حق جركه وحين ولد قال ما ينمقع وانا قنا ودليرو وحن وهر تجينا أنا وقت كاننا وضن نمو يا صومالي نمو يا وقت كاننا قبيل وجماعة كان كرنه ويكتجني وقبيل وهي وجود بين وح عالمك أو دن يكتاجيريان عالمك حجيك يكتاجيريان وحن كل دقالي كرنا أما نقول تي كرنا مبدأ باتريوتيزم اللي يراهدو مبدأ وطني اللي يراهدو يا نقول تي كرنا قبيل لو نقول تي كرو وحاليا كيف فدي عدل يرو إن عاد نقطان ضد وطنيينه إن نقطان ضد باتريوتيكه أو دلكين يدكين أودنتا أنا قلنا عن هرمود يكون قلنا أما هرساد يكون قلنا سيدنا يكون قامين لهين دولة وناكسن دولة شرع كل سنة أنا أروح يكون قامين نظام iyo sharci iyo cadaalad yaan ku hogaaminayna gabdhaha Soomaaliyeed oo waligood ahaa laf dhabarka dalkan iyo dadkiisa idinkana waxa la kaga fadhiyaa sidii hooyooyinkiin iyo ayeeyooyinkiin ay u soo halgameen dalkaani inuu noqdo xor dalkaani inuu la tartamo caalamka intiisa kale inaad gabdhaha Soomaaliyeed gabdhuhu inay u istaagaan inay dalkan iyo dawladdiisa garab u noqdaan oo ay gacan siiyaan oo ay la shaqeeyaan walaalayaal hadal waxa ma taro intaas waa la hadlay markaan waxa la rabaa hawl in la qabto waxa la doonayaa in aan shaqeyno in aan shaqadaas aan hayno aan ummadeena ku gaarsiino horumar inaan ku gaarsiino waa maasantihiin Soomaaliya ha noolaato waxaan leeyahay hambaliyo sanadkiisa kalena inaan ku gaarno caafimaad iyo horumar badan waa mahadsantihiin Give